roob lixaadle ayaa ka curtay gudaha magaalada xariir roobkaasi oo guud ahaanba hakadgeliyey isku socodka dadka iyo gaadiidka roobkaasi oo guud ahaanba muddo 4 saacadood haystay deegaanka xariirad ayaa waxa ay dad khadka telefoonka aanu kula xidhiidhnay noo sheegay sida roobkani u da'ayay iyaga oo sheegay in roobkani uu ahaa mid aad u xoogan islamarkaana khasaare ka sokow guryaha sandaqadaha uu ka qaaday bacihii sidoo kale waxa uu roobkani la sheegayaa in guud ahaanba suuqa magaalada xariirad وداد وين سعودة إسلام كان بيه سور مضي تقاسي مولد جامع حوش وكمل حلبان ذي قلها الدجان كدقمة السيلة وقد كتلفون كوجو ورمي شبكة عالمية الشلي لليوس أي وحولي ذي قلها الدجان كدقمة السيلة واحد يقول أنت خسارة الراب كان يجيستي يسدا وداي. وانقرتي. وانقرتي. waan gartay magaalada ma biyo dhigay roobkaasi dadweynuhuna aad noogu jeesadeen haye waan gartay goobaha suuqa waxa lagu arkayay iyagoo roobku uu biyo dhigay soo ma waayahay aad baad maasanta si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeysay ayaa deegaamadaasi waxaa haystay ciirta iyadoo maantana uu guud ahaanba maasheeyey deegaanka degmada xariirad cabdi maxamed cabdilaahi wararka Shinile News magaalada Saylac.